وبرنامجكي أدود سوغيسين كابتن كايسبورتس كقلبتنا برنامجك وحاسي وذا جرا إذن كوكو دادينا يا لول شالو يعني عبد القادر بوصة كبقى شوان العلس عيار ليسكدا ليلح الله يتضبع أيو أسبوعا مرتقلية قرون كان كوركا دندين إيرون نرقود ستاديوم كوحد نرقود ومن كذا لما فلان وقوم مرتقلي سي كوحد الشباب أيا قاب عيارات دفاع عيارتي تاسو كانت إن قيبتي هوري عيارتا wax ka yar 8 minute shabaqooda la soo taabtay 6 jeer xil xidiga amisom iska diidaa in bedel ay ku soo galaan ciyaartan qaybtii dambe ee ciyaarta ayaana laacibin ka tirsan kooxda Madiina ee gobolka Banaadir degdeg u soo galeen garoonka iyagoona marka laga reebo laba xidig intii kala banaanka u saaray in ka yar 10 minute ayayna ku qaadatay in ay barbareeyaan kooxda shabaab 90 daqiiqo ee ciyaarta ayuuna haliyeego cusub ee runirgood Cabduqaadir Qoone dhaliyay goolkii guusha ee uu ku soo caan baxay taasoo natiijada ciyaarta ka dhigtay 7-6 oo shabaabka looga adkaaday naadiga shabaab ayaana laga yaabaa in dacbad ku aadan bedelka 9 ciyaaryahan ah ay u gudbiyaan FIFA walow shabaabku moog yihiin in kulamada saaxiibtinimo la bedelan karo dhammaan ciyaartooyda garoonka ku jirta إغلنا وتقلب إسبورتس عالمي يا أسبوعي لصودا في ساعة دكتور جرون كادن عدي ستاديوم ويكوع يارتق واحد قبل كبنادر لاعبين تنهو بيسنا يا نمرنا الديار وهين كغيب قادة شدا كل مدى الدرب جاي ودحيا كوحا يسوي يستو جان كوريال كدلكا إذا تثبت كذا حرد حالنا توبركو سين دونان دايرتق واحد فدرال كسيقولو قصو هيان كل مدى يوجه هيان كواحد توبره ذو إسقرية الشباب تاريخ أهان حلك إغلن كما قول درسن عرض الصوماليا تاني يكون يسداد بقول سقالي سقاشن كي وهاتا لقى jooga 117 sano markaasoo kooxdii daraawiishtu afku ciidu dareen xulkii England oo xilligaas leelinaya tababare Kofi waxaana dhowr kulan saddexle ka dhaliyay madaalihii waqtigaas ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan كابتنكي أمنيكا كوحدة كوبادة عكتا بنتلان عبد حرسي علي قرجب أيانا مانتا سو حاضرين حيرادة تبابركا قروا كدب داوع بوضادة أو كسو غاري كولان ربشادة وطا أو دحية إسلا عيارتوي كوادة ترسان كوحدة أمنيكا بنتلان taasoo ka dhacday garoonka caalamiga ee magaalada Boosaaso dhaawac xidigan laf dhabarka u ah kooxda Cabdiwali Gaas ayaana shalayta loo duuliyay dalka Djibouti si soo kabsashada fardaha loogu sameeyo laacibkan ayaana laga yaabaa inuu seego kulamada kooxdiisu suurtagal tahay inay wajahaan galmudug Somaliland iyo shabaab laakiin dhakhtarka xidigan ayaa u ogolaaday in gudaha xarunta caafimaadka uu kaga soo muuqan karo kulamada dacaayada afka ee kooxdiisa bil walba dhaxmarta kooxda federaalka kooxda federaalka Soomaaliya ayaa jabisay isbuucan rikoodka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda markii adduun gaaraya 70 milyan oo lacagta shilin Soomaaliga ku soo xaragasteen kabtankii kooxdii garsoorka iyo xulka qaranka Soomaaliland Ibrahim Idla Saleymaan si uu buuxiyo boosku Faruji wayaaragii hore reer Soomaaliland ilka xanafkaas oo laga soo oriyay darajadii kabtanimo ee kooxda maxkamadda isboortiska qaranka xidigan Ibrahim Saleymaan ayaana iskiis u kansalay heshiis waqti dheer uu kula jiray xulka Soomaaliland isagoona u sheegay in daweyn uu aadi doono magaalada Cape Town si uu soo xaliyo dhibaato dhaawac oo laacibkan ka haysata anqowga walow taasi bedelkeedu uu toos uga soo degtay garoonka Aadan Cadde jaridda Hargeysa Times ayaana tabaaxaysa in xidigan horaantii match heshiis afka la gaaray kooxda federaalka oo balan qaaday mushaar laba jibaara kaasoo laacibka baxarka galay ku kaliftay heshiiskan waalida ah soo xirigelinta xidigan iska iloowe ixtiraafka ayaana kooxda federaalka u sahli karta in dalabyo cusub ay gudbiyaan laacibiin hor leh taasoo dhalin karta in labada naadi ee xifaalka baan ka dhaxeeyo murankoodu gaaro guddiga ciyaaraha caalamiga ee FIFA taageerayaasha isboortiska Soomaalida ayaa sawirro maadiisi ah ka sameeyay xidigta Asma Love taasoo kumanaan taageerayaal ah hortooda si qaldan ugu dabaaldegta xalayto xiriirka FIFA ayaana hore u mamnuucay in ciyaartooydu dabaaldeg dartiis u siiban karaan maaliyadda taasoo laacibku ku muteysan karo calaamada hurdiga ama xitaa casaanka xidigtan kobaca fankeeda aadka u liito ayaana taageerayaasha horteeda ku siibatay maaliyadda xishoodka iyadoona ganax ku muteysan karta qoraaladii ay soo dhigtay barteeda Facebook walow ay ka saartay markii dambe xidigtan ayaana sidoo kale sheegtay fanaaniinta Xamdi Queen iyo Yurub Kenya ay ku taageersan yihiin dabaaldega naasiga walow warbaahinteena aysan u haynin wax cadeema oo ku baahin karna haatan wargeysyada isboortiska Daily ayaa goor hore oo jimciya si rasmi u xaqiijiyay inuu dhaqan galay heshiiskii Farxiyo Faski iyo Bashiir Hanuuniye taasoo meesha ka saaraysa madmadowgii warbaahinta ugu jiray suurtagalnimada heshiiskaas xidiga Bashiir Hanuuniye ayaana saxiixay heshiis 3 sano oo isbuuci uu qaadan doono adduunna 200 euro
diyaar tahay xayeysiintu u baahiyo flyerka xidigtan heerka caalami ah isagoona sidoo kale kasban kara lacago abaalmarin ah haddii laacibkan sanadkiisii ugu horeeyay uu ku guuleysto horyaal ama xitaa FA Cup-ka sidoo kale heshiiska ayayna ka marneen in laacibkan uu warbaahinta live uga xaqiijiyo inuu burburiyay heshiiskii uu kula jiray xidigtiisii ugu dambeysay taas uu kula guuleystay hal Champions League iyo horyaal taageerayaasha reer Daynil ayaana fariimo bogaadin isugu dirayay barahooda u qaaska ee bulshada sida WhatsApp iyo Facebook iyagoona la dhacsan in xidigu guul u soo hoyay kooxda mar kale iska garab ciyaar لاعبكي هوري كوحدة BBC دا معلمو ayaa ku dhawaaqay inuu isu soo sharaxayo hogaanka Sportska ee Nusaj taasoo muddo aheyd koox maamulkeedu hareeyay khilaaf Sports xidigaha Umar Faaruq iyo Pakistan ayaana dhowr jeer oo hore gudaha garoonka isugu gacan qaaday khilaaf ka dhashay kabtanimada kooxdan yeelkeeda xidigaha kooxda saxaafadda ayaa dhankooda kala saari karin cidda leh mudnaanta koowaad ee Nusaj taasoo sii kordhinaysa xiisaha tartankan shaqada ugu badan ee kooxdan ayaa kaliya inay cambaareeyaan لاعبكي كترسن كوحدة صحافة اي شبابكو كدران هوريالك الدنيا iyo kii faawulkiisa ku muteysta xabsi Sports hidigan macallimu oo dhawaan ka soo kabsaday dhaawac wajiga oo ka soo gaaray bandhig shabaabku ka sameeyeen gudaha garoonka Lido ayaana isha ku haya jagada si uu helo mushaar uu kaga kaaftoomi karo kii BBC kaylo wariyaashii ku xaweebsan jiray soo gudbinta ciyaaraha sida James Berry oo British ah Russell Buffalino oo Italy ah iyo Sam Shawali oo reer Tunisia haatan ay la daawo Maxamed Qadar oo dalsan raadiyo ka tabinaya guushi Leicester ee horyaalka ayaa caawiye Leicester City inay horyaalka qaado Riyadu arunawday Leicester City wariyahan Sports ayaana dhownta isaga jaray mushaar aan ka badnayn $50 isagoona ciyaar walba ku tabiyo oo hidduco iyo qeeladaan ku cusub Sportska dariska idaacadda kaagna ayaana seexan habeenkii ay jirto ciyaar xiiso leh dadka qaar ayaana la fajacshan qaabkan ka baxsan anshaxa Sportska walow 30 jirkan isagu soo haysto mid raacaya wadada kaliya ee uu magac kaga sameeysan karo taageerayaasha Sportska khibrada Sportska ayaana isweydiinaya haddii wariyahan Ingiriiska ku dhiban loo 3 jibaaro mushaarkiisa in qeyladiisa uu ku weyn karo horyaalka quruxda badan ee dunida markana baafinta waxa la baafinayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin markii cid ugu wardambeysana wuxuu sharaf ku wareejiyay kursiga oo xitaa hadii uu didi la xoog looga dajin lahaa haddaba cid allaale cidii aragtay xidigaasi kooxdiisu danaynaysa in horyaal cusub furatana waxa laga codsanayaa in hurdada ay ka toosin karaan laacibkan hadii uu ku qarwo in gobolka Awdal ka go'ay Soomaaliland inteeda kale ama waxaad uga yeeri kartaan xulka qaranka Soomaaliya isaga midnimo qaran raadi doone sidoo kalena waxa la baafinayaa xidiga kooxda fanka xoog uga mid noqday ee Mustafa Rasta markii cid ugu wardambeysana wuxuu daawada jirka kobciso u isticmaalayay dhowr kulan faneed ah haddaba cid alaalay cidii aragtay xidigaas jiimka iyo fanka isaga qaldan yihiin waxa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in ciyaarta fanka aan laga dheelin murqaha iyo xabadka haddii uusan kari karina waxaad ku casuumi kartaa bandhigyada birima ama kuwintaasha isaga baasaska nikada boos ka qaadan doonee sidoo kalena waxa la baafinayaa agaasimaha radio Dalsan Xasan Cali Geesay markii cid ugu wardambeysana wuxuu taageerayaashiisa ku dhageysanaya telefoonka sida agaasima VOA ama BBC oo kala ah haddaba cid allaale cidii aragtay xidigaasi kulaalka xamar la daala dhacayna waxa laga codsanayaa inay ku wargeliyaan in mushaarka Cabdiraxmaan Yabarow iyo Farxaan Jimcaale uu u shan jibaarma kiisa Dalsan teleefoonadan ay ka jawaabaan ama waxaad ka falaashi kartaa number UK ama USA ah isaga durba kugu soo celin doone baafinayaa wariyihii BBC da Xasan Barise markii cid ugu dambeysana waxa laga xiriirsaday booskiisii joogtada haddaba cid alaali cid aragtay xidigaasi codkiisa u la yaqaan waxa laga codsanayaa in shaqo ay ugu qalqaaliyaan TV-da Universal ama Home Cable si muuqiisa loo helo ama waxaad ku casuumi kartaan arooska Bashiir Haruuriye iyo Fiska isaga xiriiriye ka noqon doona intaas ayaynu ku soo gabagaben doonaa barnaamijkeeni kaftanka Sportska barnaamijkana waxa si wada jira idinku ugu daadihinaya Lul Shaalu anigoo Cabduqaadir Boosa barta aan ku leenahay Facebook ayaan ka daalacanaysay halku dhigeen waa lagu hanto lagu xasuusta ayaa ka horeysa وبهذا برنامج كوسكو دوبنا إذا لقى شان كذا نربك أنا ضاغط دقيستون وعمر كريش from Vienna
waraday dhiiftiya dulmigu dushaada ka muuqata biri ma daawasho waraday dhiiftiya dulmigu dushaada ka muuqata aniga roobidayo dambarbaan maalaya aniga roobidayo dambarbaan maalaya